waxaan rabnaa inaan idin cadeyno oo shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagno meel kasto joogan inaan muxuu ahaa u gudbinay soo jeedintii xeerka ahayd oo xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan u gudbinay annaga oo muxuu ahaa gudanayna waajibkeena dastuuriga ah qodobada dastuurka uu noo ogol yahay tusaaleynayna guddoonka golaha shacabka ayaan u gudbinay soo jeedintaas wuuna naga aqbalay waana la qabtay isla maanta hindisahani wuxuu xambaarsan yahay qodobo u qalma in madaxweynaha xilka looga qaado oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran oo ay ka mid yihiin qodobo dastuurka ku yaala oo uu si cad ugu tuntay iyadoo la og yahay in waajibaadka madaxweynaha uu ka mid yahay inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ee lagu heshiiyey waxaa ka mid ah qalalaase iyo burburin habkii iyo nidaamkii uu madaxweynuhu xilka ku qabtay oo ahaa federaalka waxaa ka mid ah heshiisyo qarsoodi ah oo mugdi ku jiro kuwaas oo aan la garanayn dalka waxay dhaxalsiin doonaan annagoo ka mid ah xildhibaanadii shalay madaxweynahan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta xilka haya ee eedeysan garab istaagay qaran ku bixiyay codkooda siiyay si ay u rumeeyaan una xaqiijiyaan rabitaanka shacabka waxaan maanta xaqiijinaynaa oon cadaynaynaa marqaatina ka yihiin shacabkii aan matalayno codkoodana ku siinay una garab istaagnay si aan u beenino rabitaan dal shisheeye iyo wax meel kale laga soo maleegay oo ahaa reer hebel madaxweyne halka kama noqon karaan annagoon deegaan iyo reer la ahayn saan rabitaanka shacabka aan u xaqiijino ayaan codkanaga siinay waliba aan qaran ugu deeqnay maanta kal jacayl iyo maxaan ku raahdaa saaxiib uu ahaa iyo shalan doortay uma garab taagnaan karno hadduu si cad qodobada dalka iyo sharciga dalka u yaala uu ku bareero ama ku tuntay uma garab istaagi karno dalka aynu maanta joognay madaxa bannaan walaalayaal waxaynu ognahay in madaxweynaheedii ugu sarreeyey uu soo galay heshiisyo ummadda Soomaaliyeed ka dhigaya qaar jiritaankooda la isweydiin karo muddo yar ka bacdi marka annaga oo eegayna khatarta ka iman karta heshiisyada noocaas ee madaxweynuhu soo galay waxaana la gudboonaatay inaanu madaxweynaha ka keenno xilqaadis isagaa keliya isagaa fudud qarankani maaha mid si dhab yar lagu wareejin karo 85 sanadood buu gumeystayna haystay 85 ka sanadood 10 sano oo xiriira wali ma dhicin in Soomaalida dalka degani ay iska caabin la'aan ay ku joogaan dalka waxayna inala soo darsay xaalado badan oo adag oo aynu uga soo baxnay isku tashi iyo inaynu wax kale waynu ka tanaasuli karnaa aynu diidno inaynu madax bannaanideena ka tanaasulo